waxay toddobaad kasta baaskiilkeeda kaga gudbi jirtay xadka iyadoo laba boorso dhinacyada ku wadata toddobaad kasta bilowga ciidana kama shakin laakiin maalin maalmaha ka mid ah askari ka tirsan ilaalada xadka ayaa ka shakiyey joogso maxaad sidataa si degan ay ugu jawaabtay waa ciid oo keliya mudane waa uu yaabay ciid waxay fureen boorsooyinkii wax walbana way baadheen waxba kamay helin ciid oo keliya ay ahayd si kastaba ha ahaatee waxay dareemeen in wax khaldan yihiin sidaas darteed habeenkii oo dhan way haysteenoo way xidheen ciiddiina waxay u direen shaybaarka si taxadar lehna waa loo baadhay laakiin natiijadii waxay noqotay in ciiddu ahayd ciid caadi ah toddobaadkii xigay haddana way timid iyadoo isla boorsooyinkii wadata isla jawaabtiina ku jawaabaysa markaasay baadheen waxba kamay helin arrintii waxay sidaas ku socotay 2 sanno oo dhan kadibna si lama filaan ah waxay joojisay arrimihii sanada kadib maalin maalmaha ka mid ah askarigii ayaa galay maqaaxi hotel halkaas ayaa uu ku arkay isla gabadhii hadda waxay ahayd mulkiilaha maqaaxida waa uu soo dhaqaaqay isagoo dhoola cadaynaya wuxuuna ku yidhi waan ogaa inaad wax tahriibinaysay hadda baadhitaan kuguma socdo arrintaas waa laga soo gudbayey ii sheeg waxaasi maxaa uu ahaa way eegtay wayna dhoola cadaysay waxayna ku tiri waxaasi waxay ahaayeen baaskiilada aan watay waxa uu indhaha ku hayay boorsooyinka gudaha ayaa uu ka baadhayay halka jawaabta dhabta ahi indhihiisa ay hor taallay oo waxa ay ahayd baaskiilka